kulan howleedkan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ku-xigeenka hantidhawraha guud ee qaranka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maaliyadda qorsheynta iyo banka dhexe ee Somaliland iyo waliba saraakiil ka socotay wasaaradda maaliyadda iyo marti sharaf kale ujeedada kulan howleedkan ayaa ahayd sidii sanadka 2021 loo dejin lahaa miisaaniyad dhammaystiran oo raacda habraaca maamulka miisaaniyadda qaranka iyo sidii dhammaan deeqaha caalamiga ah loogu soo dari lahaa miisaaniyadda qaranka sidii dunida loogu soo bandhigi lahaa horumarka maamulka maaliyadda ee dhinaca maamul wanaaga iyo xisaabaadka taasi oo ay ku faraxsan yihiin banka adduunka iyo hay'adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda horumarinta maaliyadda kulan howleedkan ayaa lagu wadaa marka uu dhamaado inay ka soo baxaan guddiyo farsamo oo soo dejisa siyaasadda lagu fulinayo qodobadan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Muuse Ibrahim Yusuf waxaana ka mid ah hadalkiisii war ku dharagsanay baan filay ujeedada wuxuu doonaynaa falanqeyn ka bacdi iyo la fagoris iyo dhinac walba ka eegis ka bacdi inay halkan maanta kala tagno wixii baan maasha u nimi oo ah sidii aynu u mideyn lahayn sidii aynu soo ka warqabno miisaaniyaddeena kuma cadda hay'adaha madaxa banaan miisaaniyaddu si dhammaystiran ugu cadda dawladaha hoosena si fiican ugu cadda ugu dhammaystirna Allahumma salli ala sayyidina deeqaha caalamiguna kuma dhammaystirna kuwa waxaanu doonaynaa inaynu taa horumar weyn ka sameeyno oo aynu maanta miisaaniyadda 2021 sidii aynu u mideyn lahayn ee aynu maxaan ku dhahdaay oo arinta uga midho dhalin lahayn inaynu halkan kala tagno inagoo waliba isticmaalayna nidaamka xisaabeed ee wadanka waxa kale oo halkaasi hadal ka jeediyay ku-xigeenka hantidhawraha guud ee qaranka Saad Cabdullaahi Riiraash oo soo dhaweeyay kulankan maanta runtii waa kulan muhiim ah muhiimad weyn buu anaga hantidhawr ahaan noo leeyahay waxa weeyaan waxa baan qabaa inuu soo dahay kulankan sababtoo ah waxa mar hore sameeyno deeqa badan baa runtii soo gala wadanka deeqa badan baa soo gala xisaabna inaguma jirto marka wasaaradda maaliyadda waan ku bogaadinay kulankan maanta ay noo soo abaabuleen insha Allah waxaan rajaynayaa wax kool ay ku soo baxaan insha Allah baan rajaynayaa waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan oo ka warramay muhiimadda uu kulankan u leeyahay qaranka sidii deeqaha caalamiga ah ee dalka soo gala ay uga muuqan lahaayeen iyaga oo faahfaahsan oo habraaca diyaarinta miisaaniyadda habraaca fulinta miisaaniyadda habraaca xisaab xidhka miisaaniyadda iyo habraaca isla xisaabtanka iyo baadhista miisaaniyadda iyo habraaca soo bandhigidda waxqabadka miisaaniyadda iyaga oo intaas oo shuruudoodba buuxinaya sidii miisaaniyadda 2021 ay iyaguna si faahfaahsan miisaaniyadda qaranka uga muuqan lahaayeen waxa kale oo kulankan lagu lafaguri doonaa si loo helo hawlahaas oo dhan inay qabsoomaan in nidaamka isticmaalka ee systemka maamulka maaliyadda ee loo yaqaan Somaliland Financial Information System amba IFMISku sida uu capacity-ga iyo diyaar garowga iyo shuruudihii looga baahnaan lahaa oo dhan sidii wasaaradda maaliyaddu ay u soo bandhigi lahayd diyaar ahaanshaha systemkaas sidoo kale waxa la soo bandhigi doonaa nidaamka maamulka external aid-ka amba xafiiska EFS-ka xisaabaadka guud horumarka uu ka gaadhay maamulka maaliyadda ee deeqaha caalamiga ah ee uu maamulo iyo nidaamkiisa maamul xisaabeed sida uu hadda yahay iyo sida uu awood ugu leeyahay go'aamada halkan ka soo baxaya ee ah in dhammaan deeqaha caalamiga ah la mariyo hab xisaabeedka dawladda iyo systemyada ay isticmaalayaan iyo accountability procedure-ka iyo financial reporting-ka dhammaantood ay ugala mid noqon lahaayeen wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee miisaaniyadda dawladda dhexe ku xusan ugu dambeyntii agaasimaha guud ee banka dhexe Axmed Xasan Carwo halkaasi ka hadlay ayaa isagana waxa kamid ah halkiisii oo aanu diyaar gareyno hadii lacagta ajnabiga noo imanaysa in si toos ah banka u imanayso oo diyaar u nahay marka programka in lagu daro in xisaabaha soo dhammaantood maadaama central bank aanu nahay inay deeqaho dhameeyno soo maraan meesha dhexe oo maadaama budgetkii la xiriirinayo sida halka ugu wanaagsan ay ka bixi karaan
dawladduna leedahay tahay baanka dhexe annaguna aanu facility-ga iyo awooddii aanu u leenahay taasi baan maaragtay aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in wasaaraduna nala qaadatay fikirka